مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام kulanti wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kastoo dunida aad ka joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka sanadkiiba bisha barakaysan ee ramadaan aynu qabanno barnaamijkaas oo halkudhigiisu yahay heel hadiyad oo ah barnaamij su'aalo kala duwan aynu ku weydiinno saaxiibada aynu kula kulanno gudaha magaalada muqdisho su'aalahaasi oo isugu jira cilmiga iyo weliba maadiga iyo diiniga kaasi oona ugu talagalna bisha barakaysan ee ramadaan in dhallinyarada soomaaliyeed su'aalahaas ay kala faa'iidaystaan barnaamijkan waxaa aalaaba taabageliya daawadayaal shirkadda daabacaadda Supersan Design oo ah shirkad dhinaca daabacaadda iyo adeegyada kala duwan ee daabacaadda hab casriya iyo qiimo jaban uu qabata bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo gudaha dalka ay ka joogaan isla markaana adeegyadaasi ay soo dalban karaan barnaamijka inta uu soconaya daawadayaal waxa su'aal weydiinta uu noqon doonaa iyo daadiintuba anigoo Xasan Salaad Xasan Lakiya dhinaca kamaradana waxa iga saacidayay saaxiibkay Maxamed Xuseen Maclow kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkeena heel hadiyad مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale markana waxaanu gudageli doonaa su'aalaha kala duwan oo aynu weydiin doono qaybaha kala duwan ee dhalinyarada oo aynu kula kulanno gudaha magaalada muqdisho su'aalahaasi oo ah su'aalo jawaabaha ay ku bixiyaan aynu ku siin doono hadiyado kala duwan qofka ugu horeeya ee nasiibka u yeelanaya ayaan su'aasha ugu horeysa aynu weydiin doonaa halkan ayuuna iman doonaa qofkaas waa tahay daawadayaal markana waxaan gudageli doonaa su'aalaha kala duwan ee saaxiibkan ayaan marka hore weydiin doonaa magaciisa saaxiib soo dhow aad waa mahadsan tahay magacayga Shaafici Cabdisalaan Xasan Shaafici dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa tahay aad iyo aad barnaamijkan inaad ka qayb gasho waad ku faraxsan tahay aad iyo aad weyn si weyn ugu faraxsanahay haye nin dhalinyaro ayaa tahay maxaad qabataa aniga magaalka ka shaqaystaa heer waxbarashada iska ma sha Allah bajaajla ayaa tahay sidaan filay bajaajna jimcay qiimsana jaamacadda ما شاء الله waxbarashada aad baa ugu wanaagsan tahay aad iyo aad insha Allah mar kale Ramadaan Kariim ayaan ku leenahay Ramadaan Kariim dhamaan ummadda Soomaaliyeed kulli adigay dhamaan ummadda Soomaaliyeed waa hagaag su'aalo kala duwan ayaa nasiib u yeelatay mid kamid inaynu ku weydiino shirkadda Supersan oo daabacaad ayaa ugu talagashay hadiyado kala duwan inay ku bixiso su'aaluhu marna qofku uu garan karaa marna way ka farbaxsan kartaa laakiin waxa muhiim ah in qofkii uu sameeyo isku day oo aad iyo aad isku day macnaha try gareeyo inuu يعني أو أمريكا جوابي كره هذا هدانا أقوله وفلله الحمد وسيد الروي هدانا أقوله هنا هذا واحد أقونته هل سؤالكم كم هذه وتاين صاحب نمبر ككوات إلا إن نمبر كشنات سؤال أيها كحسن سن نصيب كا أو تجابي سو نمبر أيها قبسنا يسأل سؤاشة مركا كوجد جرتاه أي نكويدين دونا سودو أوكي نمبر ككوات يا نمبر كشنات أنا نمبر سدح عن دور تاني نمبر كسدحات سؤاشة هذه هذا نمبر كسدحات أنت سؤاشة نكويدينين رجل هذا كورن والله وحاول يعني
waa saa daata kuu sheegay macnaha haddii aniga aan guulaysto fillahi alxamd haddaan guulaysto waayene hadda waxa waaya shantaa su'aalood inaan afarta aqaana laga yaabaa midda la ii weydiina aan aqoon waayo boqolkiiba boqol waa tahay in su-aasha ku xusan nambarka saddexaad waxay leedahay waxaad sheegtaa adduunyada waxa ugu dambeeyo waxaad sheegtaa adduunyada waxa ugu dambeeyo waxaad haysataa sakinno aad ku fikri karto kadibna aad jawaab isin karto haye adduunyada waxa ugu dambeeyo oo macnaha amba nolol ah amba adduunyada waxa ugu dambeeyo su-aashu taa su-aasha waxay tahay sheeg waxa adduunyada adduunyo ugu dambeeyo badda haddii la aado meel dambe oo loo dhaqaaqo ma jirto ma waxaa ku adkaysanaysaa jawaabtu inay badda tahay inay badda tahay baddaas haddaan raacdo bes meel la aado ma lahan waxaan kuu fiirin doonaa jawaabta aad bixisay sax iyo khalad nambarka saddexaad oo daawadayaal su-aasha waxaad sheegtaa adduunyo waxa ugu dambeeyo jawaabta uu saaxiibkay ka bixiyey ma aha mid sax ah soo dhawaaya kule shaafici shukran aad waa mahadsantaha waa mahadsantaha waa hagaag daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka hel hadiyada oo ah barnaamij su'aalo kala duwan aynu ku weydiinayna dhallinyarada aynu kula kulanna magaalada muqdisho shirkadda subersign design waxay kugu talagashay adeegyo kala duwan oo isugu jira daabacaad hab casri ah qiimo jaban iyo wakhti waliba inay heegan kuu tahay in wakhti kooban ay kugu adeegto haddaba su'aalihii bisha barakaysan ee ramadaan iyo barnaamijka hel hadiyada ayaan ku guda jirnaa saaxiib dhallinyaro ah ayaa dhinaceega bidix iminka taagan marka hore saaxiib magacaaga magacayga waa rabiic cabdulqaadir rabiic waxaa ka mid tahay dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho waa sax waa ku noolahay rabiicow degmadee ku nooshahay degmada hadan yaa salaam su'aal ayaa taalla waxaad isku dayeysaa su-aasha inaad ka jawaabto zaa'id si badan waan jeclaa inaan ku guulaysto su-aasha ka faa'iidaysiga u baahan waa su-aashii saddexaad ee barnaamijka waxayna leedahay waxaad sheegtaa adduunyo waxaa ugu dambeeya jawaabtaa ka bixinayso adduunyo waxaa u dambeeya oo aa u dambayso waa jawaabteeda ugu dambaysa adduunyo waxaa ugu dambayso o ama o adduunyo waxaa u dambayso o waa hagaag rabiico su-aashii koowaad waa su-aashii saddexaad ee barnaamijka dhinaca kale su-aasha koowaad u dhiganta oo ahayd waxaad sheegtaa adduunyo waxaa ugu dambeeya jawaabta uu ka bixiyey waa mid sax ah adduunyo waxaa ugu dambeeya xarafka o ama o hambale ayaan ku leeyahay waxaad ku guulaysatay hadiyad ah buugnood buug oo xusuus qora oo subersign ay kugu tala gashay iyo sidoo kale kalandar oo aad kala soconayso taariikhda iyo bisha iyo sanadka halkuu marayo marka maxaad oran lahayd subersign guulaa u rajaynaa aad baad u mahadsan tahay garashadaada wanaagsan iyo su-aashii cajiibkeed ee rabbi aad ka jawaab celisay waa ku faraxsanahay su-aasha aa ku jawaabo waa mahadsan tahay ramadaan kariim ramadaan waa hagaag daawadayaal rabiic wuxuu ku guulaystay jawaabtii uu bixiyey hadiyaddan ah in kalandar oo markaasi taariikhda kala soconaya subersign bilaha maalmaha iyo weliba sanadka iyo sidoo kale buug hadiyad ah oo isna ah buugga kala yacni lagu qorto qoraalka ama xusuus qorka bugnoodka rabiic soo dhowow mar kale waa dhawaay waa tahay daawadayaal weli waxaad nagala socotaan telefishinka dalsan barnaamijku waa hel hadiyad shirkadda subersign ayaana taabagelinaysaa meel kastoo aad joogtaan ramadaanulkariim ayaanu idin leenahay su-aalaha kala duwan aynu jecelnahay dhallinyarada in aynu weydiinno ayaynu dhex maquuranaynaa hadbadhan aynu ka soo qaban doonnaa saaxiib kale ayaa ila taagan markaas saas u eegana waa nin iga dheer daawadayaal macal asaf laakiin su-aal iyo nasiib wuxuu u helo ayaynu weydiin doonnaa saaxiib marka hore magacaaga cabdiqaadir cabdiraxmaan gaawow maasha allah waa mahadsantihiin idaacadda dalsan waan gartay idaacaddii tv-ga waa lagala socdaa waxaan ku leeyahay soo dhow waa dhawaa maasha allah waa ku baanshantihiin barnaamijkan ramadaanka anoo qabateen haddaanan dhallinyarada ku nool gobolka banaadir aad iyo aad dhallinyarada qaar isboorti bay ciyaaraan qaar yacni way xamaashaan oo tukaamiyo ganacsi ayay ku jiraan qaar waxay wadaan gaadiidka loo yaqaano bajaajta dabcan adigu dhallinyarada ku jirtaa inta baa isku ah marna waxaa soo bartay marna isboorti waan iiri jiray hadda laakiin ilmo kurisaan ku jira bajaaj ayaan wadaa xaajiyadda macal awlaad ayaa loo shaqeynaa maasha allah si wacan ilmo kurisaan lagu jiraa insha allah waa hagaag adoo aad u mahadsan nambarka koowaad ilaa iyo lambarka shanaad ayaa inoo xusan nambarka saddexaad waa uu baxay su-aal laga faa'iidaysta ayay noqoto marka nambarkaa qaban doonta adigu lambarka labaadaan qabsanaa insha allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo waa hagaag nambarka labaad su-aasha ku xusan waxay tahay waxaad sheegtaa wax markii wax lagu dara gaabta markii wax laga qaadana weynaada
haddii aan kugu celiyo su-aashu waxay leedahay waxaad sheegtaa wax markii wax lagu daro gaabta markii wax laga qaadana dheeraada mar saddexaad haddaan kugu celiyo saaxiib waxaad sheegtaa wax markii wax lagu daro gaabta markii wax laga qaadana dheeraada haye 3 jeer ayaa fursad u heli doontaa in aad jawaabta bixiso sakanna waxaad leedahay aad ku fikirto dabcan waan ku soo dhaweynaynaa waad sii fikiri kartaa su-aashan cajiibka ah sina u fudud sina laga yaabo qofka in ay ku noqon karto su-aal adag haye soo dhawo saaxiib waa dhawaa maasha allah su-aashaan ma garanay su-aasha ma garanaysid waagaag saaxiib soo dhawo ayaan ku leenahay sida qiimaha badan ee aad inoogu soo gaabisay jawaab celintaada waxaan ku leeyahay waqti wanaagsan soo dhawo waagaag daawadayaal waqti wanaagsan ayaynu idin leenahay mid ka mid a saaxiibada muruqmaalka ah ee hoostiisa shaqayso oo ku guda jira barnaamijkan ka qaybgalaya ayaa ila taagan oo aan uga mahad celinayno isagoo shaqadiisa ku jira haddana in uu isku dayi doono su-aalaha halkan aynu ku hayno in markaasi uu ka jawaab celiyo saaxiib marka hore soo dhawow magacaaga waan dhowe walaale magacayga Mustafa Xasan Xuseen alda maasha Allah waxaad ka mid tahay ganacsatada garbaratada yes su-aalo ayaa inoo yaalla waad ka faa'iidaysan kartaa haddaad doonto number waad qabsan kartaa waa isku daya su-aasha marka hore in la weydiiya jeclaan lahaa su-aashaas tan faa'iidaysiga u baahan waagaag su-aasha ka faa'iidaysiga u baahan waxay ku leedahay waxaad sheegtaa wax markii wax lagu dara gaabta markii wax laga qaadana dheeraada wax igu su'aale waxaad sheegtaa wax markii wax lagu daro gaabta markii wax laga qaadana dheeraada ma sheegi kartaas nambarka koowaad ilaa iyo nambarka shanaad ayaa miiska noo saaran nambarka labaad iyo nambarka saddexaad su-aale ayaa ku xusan way baxeen nambarada haray haye soo dhawow nambarka shanaad qabsanaa lambarka shanaad ee barnaamijka su-aashu waxay ku leedahay sida tan waa maxay waxa mar walba ka dambeeya xayawaanka eyga ama gadaashiisa waxaad sheegtaa wax mar walba xayawaanka eyga gadaashiisa ka dambeeya xayawaanka eyga ka sii dambeeya oo daba soconaya marka waxa ka dambeeyaan ku yiri su-aashu waa su-aal sina u fudud haddaan kugu celi waxay leedahay waa maxay waxa mar walba eyga gadaashiisa jooga ama laga heli karo dubkiisaa ka dambeeya wax kale ka dambeeya malaane yah dubkiisaa ka dambeeya waa tahay hambayo jawaabta aad bixiso waa mid sax ah eyga mar walba gadaashiisa waxaa ka dambeeya dibkiisa ama sentiisa saaxiib soo dhawo ayaan ku leeyahay waxaad ku guulaysatay koofiyad ay kugu talgashay shirkadda daabacadda Supersign dabcan marka hore su-aashu waa la cajiibta ayaan u malaynaya eyga waxa ka dambeeya dibkiisa noqon karaan laakiin marka waxaad isleedahay wax daba socdo miya waa shaki aan ku galayo moogta waa tahay su'aalaha dadka idinka weydiinayseen waa dhiirigelin ay ka dhigan tahay marka waa muhiim in qof kasta la weydiyo ra'yigiisa iyo su'aalaha sidii ugu jawaabi lahaa marka aad iyo aad waa mahadsan adna waxaan ku rajaynaynaa ganacsi horumar waa mahadsantahay aad iyo aad Supersign design ayaad ku guulaysatay waxaan ku leenahay saaxiib hambaliyo shukran aad waa mahadsantahay waa tahay daawadayaal weli barnaamijka hel hadiyad shirkadda Supersign ayaynu ku guda jirnaa su-aalaha bisha barakeysan ee Ramadaan oo sanad waliba barnaamijkan aynu ugu talagalnay in magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah dhalinyarada aynu ku booqanno su-aalahaasna aynu ku weydiino isdhexgalka dhalinyarada iyo weliba kala aqoon kororsiga ayaynu su-aalaha ugu talagalnay saaxiib kale oo dhalinyaro ayaa haatan ila taagan marka hore saaxiib soo dhawo magacaaga Saciid Cabdullaahi Taxabo Saciid waxaa ka mid tahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho haye wadana ka bajaajle bajaajle iyo salaam adoo xamaalinay sidaan ugu soo leexatay waagaag Saciid rajadaada in su-aalaha ka jawaabto inaan guulaysta rajeynaa waa hagaag su-aalaha waxaa inoo yaalla nambarka koowaad ilaa iyo nambarka shanaad weeyaan laakiin su-aalaha baxay waa su-aasha labaad su-aasha saddexaad iyo su-aasha shanaad laba su-aal ayaa inoo harsan oo kale ah su-aasha koowaad iyo su-aasha afaraad midkee ayaad nasiibsan doontaa kan afaraad su-aasha afraad ee barnaamijka su-aasha waxay ku leedahay sida tan waxaad sheegtaa ama waa maxay dhaawaca aan dhiigga ka iman dhaawaca aan dhiigga ka iman qofku markay dhaawac uu gaaro yani waxaa laga yaabaa inuu dhiig ka yimaado kani waa dhaawac aan dhiig ku imaan haye jabka waay jabka yani qofka xaaladuu gelayaa gudaha dhiig ayaa ku furmi kara markuu jabo qofka bannaanka haye jabka dhaawac uu geysan karaa oo laakiin kuma furmo badanaa ma ku furmo maya
waagaag saciid waa isku dayday laakiin jawaabta rasmiga su-aashaasi maana heleelin waqti wanaagsana saaxiib kuu rajaynayna soo dhowow waa hagaag saaxiib ayaa ila taagan waa nin xariifa su-aasha hadda aan weydiinayay saaxiibkay Saciid ayuu rabaa inuu ka jawaabo waa isxariifeena odayga saaxiib maalin wanaagsan نعم 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 ما في أنت bello magacaaga مقعد اسمان أحمد آدم ismaan adoo kaamirada fiirinaya cajiib alcajiib من هدين فيري نبان كله ولا يدوا سما aad iyo aad weliba waa ka jawaabaysaa أنت غلط وايم سما كله بعدين فيري يهتان فيري كله أنا ولا يدوا يا aad iyo aad كسر okay su-aasha banaanka taalo waxay tahay dhaawac aan dhiig lahayn haye دابا عندي لين متقنا وايه خفت أوديك على هن معناه جده وده مية مسكال دابا أو مسكال ودنها أما قلبك أما خف هالكالو دابا على جاري أوديك جده وصوبه ani dhakhtar miyi wax ma talo wax ma kabo laakiin su-aasha ku waxaan ku iri dhaawacaan dhiig ku iman haa dhiig ku iman صاحب لكن خفت هدوم صدق لهن ما بك ما لها ديك بدعوة ما حلو جارسين أمرك waxaan leedahay marka jawaab noocaasa dhiiba camala ها haddii aan ku dhaho دعوة هن ديك أمسك إيمانين دعوة كريمة dhaawac aan dhiig lahayn weli meeshaas lin taagan aniga بقول ما شاء الله تاجنتها وكاجي جوا مثل يسوع بس ma wallahi waa ugu dul alif wasamaay ma ka hay saaxib وايه سوري دنت رعنا دنت رعنا ma iga tagay kale dadka u sheegay inay kugu daadata aan u sheegay dadkana waa kugu daadata ku leelo ما سيربت- أنا مش عاوها ما saarabtida يا sida arabtida سأقول يا أوجي يعني waa tahay hal su'aalan ku weydiinaa marka عقبت بني آدم ماشي طاوع أوديك عن كإيمانين ما بتشرو لكن سؤال فيه وأنا لا يوصل فكرة jawaabteeda waa lagu hayaa waxaa dhahdaa anigu waa ugu daadata dad kale aan siiyo hadhowna waa la sheegaa سلا إنك سوي استاجلا إنك بس كي يبيع لا ماذا adigina isdhiibtida laga rabaa أنا مسدي كري su-aasha waa ka sugays سؤال شديك سوي waa iska baxale وابح ما أنا دوت كم قاعد garabkaa laa galahe oo maasanta waa tahay daawadayaal barnaamijka hel hadiyad ayaynu ku guda jirnaa qaybihii dambe ayaynu soo gaarnay su-aalka faa'iidaysana way taallaa iyo hal su-aal oo ah su-aal u baahan in qofka uu ka jawaabo saaxiib ayaa hadda ila taagan saaxiib magacaaga maxamed cabdifataax cumar maxamed waxaad ka mid tahay dhallinyarada magaalada muqdisho si fiican ku soo dhowow barnaamijka hel hadiyad oo su-aalo kala duwan dhallinyarada aynu ku weydiinayno okay waa diyaaran wa ayay su-aal ayaa taale ka faa'iidaysi ma isku dayeysaa inaad ka faa'iidaysato mise su-aal cusub su-aasha haye hal su-aal ayaa inoo harsan nambarka koowaad ilaa iyo nambarka shanaad waxaa baxay nambarka labaad nambarka saddexaad nambarka afraad nambarka shanaad halka lambar ay soo haray waa lambar kow haye waa ku nasiibsanaysaa si fiican waagaag su-aasha koowaad waa su-aal odhanaysa sheeg xubinta mar alle iyo markii ay wasaqowdo caddaata sheeg xubinta mar alle iyo markii ay wasaqowdo caddaan noqoto ama caddaata mar saddexaad waxaad sheegtaa xubinta markii ay wasaqowdo caddaanta ama midabka cad yeelata haye isku day tinta haddii wasaqowdo ma caddaata waa kaa jawaabtay aniga isrigeeda xubinta wasaqooda inay tinta taago waa tahay su-aashaas jawaabtaa ka bixisay maaha mid sax ah waxaan ku leeyahay saaxiib soo dhowow waa hagaag daawadayaal qaybihii dambe ayaynu soo gaarnay laba su-aal ayaa markaa ka faa'iidaysa-aan u taagan ciddii doonaysa inay ka jawaabto ayaynu fursad u siin doonaa haye labada ma isku dayeysaa marka hore adoo magacaaga u bilaabaya magacii waa axmed ismaaciil ibraahim qayska axmed laba su-aal ayaa ka faa'iidaysa u taal ma isku dayeysaa mid ka mid a isku dayaya su-aal waxay leedahay waxaad sheegtaa wax mar alle ama xubin mar alle iyo markii ay wasaqowdo caddaan noqoto waa carabki waa hagaag axmed aad buu mahadsan yahay jawaabta uu ka bixiyey waa mid sax ah xubinta mar alle iyo markii wasaqowdo caddaato waa carabka saaxiib waxaan ku leeyahay axmed soo dhowow hadiyaddii loogu talagalay ayaa la siin doonaa waxaad ku guulaysatay funaanad ay kugu talagashay shirkadda daabacaadda super sign design waxaanu ku leenahay axmed garashadaada waad ku mahadsantahay aad iyo aad adaa mudan saaxib soo dhowow waa hagaag waxaan leenahay axmed hambaliyo waxa uu ku guulaystay funaanadan super sign design su-aal cajiiba ayay ahayd oo dad badan aan filay intana daawanaya iyo weliba inta baraha bulshada nagala socota inay isweydiiyaan axmed guulwacan aad iyo aad adaa mahadsan saaxib hambaliyo
waagaag saaxiibkay ayaa mar kale ku soo laabtay kadib markii hal jiira dheer uu soo galay oo laamiga ilaa cabbaar uu soo jiirayay kadib dariska iyo tukaamadii inuu soo weydiiyay ayaa laga yaabaa jawaabta mar kale magacaaga igu celi magacayga ismaan axmed aadan cismaan su-aashii taalow ahayd dhaawacaan dhiig ku iman saaxiib waa rafatay waa ku kala tagnay ani adiga waa joogsadaata waa kuufi waa joogsada waa fikirne kadibna waa iska buubta ها سمعنا ماشي معروة وعذرة إنه لقى موجال باهي وروري وروري سمروري وكوفي وجوكسي وفكري مركان تدي ماشي أنكو صلاة على كل حال سؤال اللي ودي جوابته وقلبك يا سلام جوابته كبعي صاحبك ومتصحة أو أهيد وعاس شيكتا dhaawacaan dhiig ku iman waa sax sida naxdinta walwalka murugada iyo qalbiga oo qofka laga jibo waagaag saaxiib waxaan ku leeyahay soo dhow ومعصمت أديات waxaa ku guulaysatay koob qurux badan oo super sign design shaaha aad ku cabi karto meel aad dhigan karto afurta xilligeed u diyaar garoobi kartid wax walba waxaan ku leeyahay saaxiib dowlata وأكون معصمت كوبكاس أديك أيام تبكو بوسو إلا يا hadiyada iga dhigtay هاديان كان laakiin waxaan jeclaha kaala soo dhowow hadiyadaada inaad qaadatid waa ku imaanaynaa hadiyadda guddoonsinaa soo dhowow waa hagaag saaxiib hadiyadaada aa haysata haddii rabtidna mishaari waa ku cabaysaa والمشاري محاولة شاهن كعبة شاه قهوة 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 سمعت أقتصاد dad badan ay kaa weydiina waxay leeyihin ninkan nin laacib waa xaafaduu degaya لكن انت كان سؤال مكساها لكن السؤال كلمة يسوى بس انك جوا inaan kuu labayn sharci maaha يا halkaaga lay joogeen وابيع كرام waan u kala wadi kartaa مركز يا waa mahadsantahay bay bay مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام